walaal ها والله ii soo wada dhawow see tahay fiican alxamdulilah walaal walaal waa xanuunsanahay haye yaanta dhex xanuun baa dareemayaa haye dhinacaas qaybta hoose wareega iyo dhabarka iyo yaanta dhan sibaan u joocsanaho anoo dhan waa xanuunsanaho infection baa i haya haye marka inaa i daweysid baan rabaa haye dawooyin hore ma qaadan jirin maya mar hore aan qaadan jiray laakiin waayahan waxba ma qaadan haa xagga dhabarka iyo ka waran see ka taha waa xanuunaya dhabarku waa iska kaykaarayaaba haa wareega iyo waxaa tiri dhabarka iyo baa haa layga sida hayaa infectionkii baa la ii hayaa haa magacaa walaal carish baa la yidhaahdaa cariisha walaal dawaa ku siinaynaa haye dawada 7 beri baa soo qaadanaysaa haye haddii rabbi idna waxaa samaysaa 7 beri kadib haa bal haddii wax isbedelaan haa noo soo laaba insha allah dawaan hadda ku siinaya haa hadda dawo fiican oo foorta isiya aan ku biskoodo haa dawo fiican oo waxaan ku siinayaa foortiya kaniinkan habeenkii iyo subaxii baa laqaysaa min xabad haa haye kanna habeenkii subaxii min xabad baa laqaysaa haye kanna habeenkii iyo subaxii min xabad baa laqaysaa haa oo kulligood ma cunahayaa kulligood waa cunaysaa haa habeen iyo subax waa min xabada baa haa laqaysaa insha allah saxsu dawo fiican maaha hadda dhowr jeer horaan daawo u qaadan jiray infection waa daawo foortiyo wanaagsan nagu soo laabo isbuuca markaa soo dhamaysatid haa markaan soo noqdo markaa soo laabatid oo dawadaa soo laastid oo haa sideeda usoo qaadatid haa bal nagu soo laabo markaas ayagayna natiijada ka dhalata haa markaan soo cuno oo dawada soo dhamaysto markaad soo waa cuntid kugu oo soo dawada soo dhamaysatid baa igu soo laabanaysaa markaas waxaa eegaynaa natiijadii ka dhalatay ma ku fiicnaatay mise haa waxba yacni isla inaan bedelin daawada ku bugsoodo iyo in kale iyo in kale saasaan haa rabnaa inaan u ogaano haa waayahay walaal dawo fiican weeye soo ma waa dawo fiican oo aada u tayo sareysa haa xanuunka hadda sheeganaysidna dawadiisi weeye marka waxaa samaysaa dawadaa soo qaado isbuuc soo qaado markaad soo dhamaysatid haa dawada nagu soo laabo haddii rabbi idmo haa waayahay walaal haye walaal soo dhawow A few moments later. walaale haa walaal ii waran see tahay fiican walaal gabadhii maalintii dhaweyd weeye oo cariish oo dawooyinka aad siinaysay hahe walaal horta dawadan waa qaato saa itir u qaado haa waa taad ifartay saa u qaado itir habeenkii iyo subaxii qaado haye laakiin waxba ima tarmin waxba haye iskagama garanin waxba iskama sidii baa u bedelin xanuunsana ilaa haddeer xanuunkana sidiisa wuu kuu xanuunka hayaa sidiisu wuu ii hayaa haa dawooyinkiina laystay haye bal hadda tala keeno walaal dawo fiican isii saasaa iniigu imaaday cariisha mid baa samaynaysaa haye dawadii haddii wax tari weyday hal waddaa inoo furan haye waddada inoo furan waxa weeye dhakhtarkeena u tagtid oo haye shaybaar aad martid oo dhiigag lagaa qaado oo maxaan ku yidhahdaa xanuunkaagii wuxuu yahay la ogaado markaasna dawada kugu habboon lagu siiyo haye marka hadda khasab waxaa kugu ah inaad dhakhtarkii aan kugu xidhno u tagtid shaybaar lagu mariyo dawadii maxaan ku yidhahdaa kugu habbooneed markii haa jawaabtaada la helay dhiig baarista haa dawadii kugu habbooneed markaa in lagu siiyo haye bay noqonaysaa hadda haddii dawada ka dawadan kaa hadday qaban ii shaqayn weydo walaalo oo aan ku fiicnaan waaye haa dawo kaloo ka fiican isii meel kale ha ii dirin maya dawo kaloo ka fiican waxaa inta dawo kaloo ka fiican lacag gelin lahayd haa waxa kaaga habboon adoo shaybaarkii intaad tagtid aad maxaan ku yidhahdaa isbaartid dhakhtarkii u tagtid uu dhiiga kuu shaybaarku diro muxuu ahaa shaybaarku waa dhiig baa lagaa qaadayaa waxaa la ogaanayaa xanuunkan ku haya haa asalkiisa iyo meeshuu ka yimi iyo wuxuu yahay hadda baa la xanuunka i haye ogaanayaa walaal anaaba kuu sheega sida la ii hayee haa oo kuwii saasaa la ii hayo infection baa hayo calaamadahaasaa leeyahay haa adiguba dhakhtar baa tahay daawo isii geedaa horta meel kale ha ii dirin horta cariisha anuu dhakhtar ma ihi waxaan ahay farmasista ama dawo bixiye qofka dawada bixiya baan ahaa dhakhtarkuna wuxuu go-aamiyaa qofka dhiig buu u diraa dhiiggaas resultigiisa markuu soo baxo uu akhriyaa markuu akhriyo kadib buu dawo u qoraa marka hadda waddada keliya oo inoo bannaan waxay tahay daawadan inaan kaa celino aan dhakhtarka kugu xidhno baaris lagu sameeyo shaybaar lagu diro dawadiina markaa maaragtay kugu habbooneed lagu siiyo hadda dhakhtarku walaal muxuu igu siyaadinayaa haddeer dhakhtarku wuxuu kugu siyaadinayaa kow taluu kugu siyaadinayaa
laba wuxuu kugu siyaadinayaa in dhiiggaagii iyo checking caafimaad oo guud lagu sameeyo xanuunadan ku haya aad ka sheeganaysid inuu baaro oo maxaan ku irahdaa shaybaar kuu diro inuu talooyin caafimaad ku siiyo waxyaabo fara badan baa ka faa'iideysaa. dawadii haddaad kusoo caafimaadi weyday waxaa u baahan tahay inaad dhakhtarka u tagtid, la fariisatid, shaybaar uu kuu diro, uu ku wareysto sida laguu hayo iyo xanuunadan say kuu hayaan iyo maaragtay calaamadahaaga u sheegtid. markaas natiijada ugu dambeysa uu dhakhtarku gaaro dawada aad soo qaadatay warqadda anaga aan noola timaado si aad dawada kuu siino. maya anigu horta weligeyba dhakhtar uma tegin farmashiga in hebel baa maalin walba tegi jira dawa ka garan jiray. haddana farmashigaagaa la ii ammaanaye iyo dawa foorta oo fiican oo ku bugsoodo isii meel kale ha ii dirin. cariisha caafimaadka qofku aad buu muhiim u yahay in farmashi maaragtay lacaga ku bixisid oo maxaa ku irahdaa dawo aan dhakhtar kuu qorin lagu siiyo oo maxaa maalin walba sax ku socoto adiga dhib kugu noqonaysaa. hadda mar walba soo adigu dawo ima siisay jirkaagii wuxuu la qabsanayaa antibiotic, wuxuu la qabsanayaa bakteeriyadii, fayraska, kulli waxay la qabsanayaan dawooyinka antibiotic-ga ahaa. adigu dawooyin fiican ma haysid soo maaha? dawooyin fiican anaga waxaan ku siin karnaa markii dhakhtarka uu maaragtay kuu soo qoray dawada baan dawadii uu dhakhtarku kuu soo qoray ayaan ku siin karnaa. laakiin hadda wax kale oo dawo ah ma ku siin karno. hadda wadada kaliya kuu furan waxay tahay inaad tagtid dhakhtar baa halkan laga furay weyn inaad tagtid oo dhiiggii lagaa qaado oo maxaa ku irahdaa dhakhtarka uu ku wareysto oo si fiican kuu wareysto kabacdiina dawooyinka uu kuu qoro aad si toosan u qaadatid. caafimaadkaaguna halkaasuu ku dhow yahay halkan kama dhowa. walaalo anigu daawo waan rabaa. daawada haddaan ku bogsoon waayo waa in daawo la isiiya. dhakhtarkuusoo daawo ima siiye. dhakhtarku daawo wuu ku siin lahaa laakiin dhakhtarku baaritaanka waxay u sahlaysaa baaritaanka uu ku marinayo waxay u sahlaysaa inuu helo dawadii kugu habbooneyd ee aad qaadan lahayd. iska qaado kulligood farmashiga ina hebel baa ka doonanaya. maya ina hebel kuma anfacayso. dhakhtar maaragtay ina hebel haddaa u tagtid oo dawo kale ku siiyo oo maxaan ku irahdaa iyadana ka fiican buu isiinaya iyadina aad ku caafimaadi weydo xanuunkaaga iyadoo aan la garanayn waxaa kaaga habboon inaad dhakhtarka booqatid oo maxaan ku irahdaa dhiig lagaa qaado halkaas aad maaragtay dawo saxan dhiig qaadkan hadda aad sheegayso waaba wax igu cusube weligaba ma aadin dhiig qaadkan aad sheegayso waaba waxa maskaxdeeda ku cusub wey. farmashigaan tegi jirna daawaana la siin jira waa qaadan jirna waana ku bogsoon jirna xoolaha iyagaas ka raacan jira. dhiig qaadkan ku fahansiiyo dhiig baa lagaa qaadayaa waxaa laga baarayaa xanuunada iyo calaamadaha aad sheegatay oo dhan baa dhiiggaas laga baarayaa natiijuu soo saaraya. natiijada markuu soo saaro dhakhtarku wuxuu arkayaa natiijadaas iyo xanuunadii lagaa helay. markaas wuxuu qorayaa dhakhtarku dawo walba iyo xanuun walba oo lagaa helay dawadii ku habbooneyd buu qorayaa. farmashi inaad tagtid oo maxaa ku irahdaa aad dawo ka qaadatid oo maalin walba dawo aad qaadatid antibiotic qaadatid jirkaaga wuxuu la qabsanayaa antibioticgii. hadhowna markii aad maaragtay xanuunsatid ama aad sariiryaal noqotid xanuunkii uu kusoo rito jirkaagii antibiotic waxba kama tarayo. antibiotic resistance baa la dhahaa ama la qabsashada antibiotic oo ka dhaxaysa bakteeriyada iyo antibiotic. marka waxaan kugula talin lahaa oo talo kuu siin lahaa dhakhtarka halkan laga furay oo maxaan ku irahdaa shaybaarka leh, qeybta jiifka leh, qeybta bukaan jiifka leh, xataa maaragtay dhakhtaradii dumarka aad ka helaysid oo iyadu si gaara kuugu shaqeynaysa in maaragtay aad tagtid oo aad booqatid halkaasna aad maaragtay ka heshid daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan, baaritaano, kombuyuutarkii, wax walba iyagoo halka ay kugu diyaarsan yihiin. laakiin inaad farmashi tagtid oo maxaa ku irahdaa farmashigii aad maalin walba dawo ka qaadato kuma anfacayso. wax jirkaaga u roon iyo naftaada u roontoona ma aha. marka waxaan kugu wacyigelinayaa aniga ahaan waxaan kugu wacyigelinayaa inaadan farmashi tegin oo farmashiga ka hor aad tagtid shaybaarka ama dhakhtarka booqashadiisa, calaamadahaaga u sheegatid, dhiigag uu kuu diro haddii ay dhakhtarada noqoto ay dhiigag kuu dirto, kombuyuutar haddaa u baahatid halkaa lagaa saaro, in maaragtay aad isbitaalka ka hormartid baan aad maaragtay kugu taxallujinayaa ama aad kugu wacyigelinayaa.
والله أنا داوان ربا هذا وركاغ ما دميستا أنا داو xanuunka iga bogsiiso aan kaga fiicnaadaan raba ma garat marka haddii aad ugu haynin daawadaas fiican aad heli karin farmashiga kale inay hebel baan ka gadanayaa nabadgelyo kole talada waa ku siina nabadgelyo asalaamu calaykum magacaygu waa doctor Faadimo Cabdulqafaar muuqaalkeeni hore sidaad ku soo aragteen waxaan ka hadlaynay dhibaatada ay leedahay qofku in uu daawo iska gato isaga oo aan dhakhtar u qorinin dhibaatooyin badan ayaa ka imaada daawada qofku uu iska qaato isaga oo aan dhakhtar u qorinin yacni qofku marka uu goob caafimaad yimaado sida caadiga waxaa la rabaa qofku inuu dhakhtarka la kulmo ee dhakhtarku uu waraysi ka qaado baaritaanka ku habboon uu u diro isla markaa markii la soo baaro baaritaankiisa waxa ka soo baxa ama xanuunada ka soo baxa ayuu dhakhtarku wax ku go'aansadaa oo wax ku qaataa markaasna daawada ku habboon ayuu u qoraa laakiin inta badan waxaa dhacda bulshadeenu iyagoo aan dhakhtarka la kulmin inay meelo farmashiyo ah oo meelo daawada lagu gado ay tagaan isla markaasna ay qaataan daawooyin waxaa laga yaabaa daawadaasu in ay dhibaato u geysato qofka caafimaadkiisa isla markaasna uu dhibtii ama xanuunkii uu iska daweynayay wax ka badan ama dhib ka badan ay qofkii gaarto soo muuqaalkeenu intaas ayuu ku saabsan